madaxtooyadu waa xabagta isku haysa dalka marna waa muraayada iyo milgaha qaranka raristeedu waa arin u baahan ka fiirsasho ballaaran dood qaran iyo ku qancin bulsho go'aanka uu sheegay maayirka caasimadu in madaxweynuhu amray in la raro madaxtooyada iyo labada aqal baarlamaan saameyn nooceah bay yeelan kartaa waase sidee afkaarta ay bulshadu arrintan ka qabto qiimaha ku baxaya dhismayaashan saddexda madaxtooyada wakiilada iyo guurtida waa mid aad u badan oo noqon kara malaayiin dollar marka aad eegto baahida fakhriga shaqo la'aanta dhalinyarta sanad walba kumanaanka ah ee jaamacadaha ka soo baxaya biyo la'aanta iyo wadaxumada caasimadda tayo xumada waxbarashada adeegyada caafimaadka ee liita dhammaanba baahiyaha soo jira ma habboon tahay in malaayiin dollar ay xukuumaddu ku bixiso dhismayaashan aan baahida aadka loo qabin sawirka qabiilka ee arrintan laga dhex dareemayo in xarumihii muhiimka ah loo qaybiyo daamaha magaalada sharciyadeedu muxuu noqon karaa haddii qof ama kooxi ay go'aansato inay raraan xarumaha muhiimka ah bari marka ay xukuumad cusub timaadana maxaa dhici doona haddii xisbi kasta ama xukuumad kasta 5 sano ay joogto ay madaxtooyo cusub dhisto wadankana ay kaga khasaarto malaayiin dollar waa dhaqan cusub oo ku soo biiri doona taariikhda Soomaaliland reebina kara raad xun ma jirtaa qiimeyn la sameeyay halka ku haboon xarumahan muhiimka ah gaar ahaan madaxtooyada mise madaxweynaha ayaa gaaray go'aan siyaasi ah oo doortay goobtan ma jirtaa qiimeyn farsamo mid amni mid dhaqaale iyo mid bulsho oo lagu saleeyay go'aanka rarista madaxtooyada iyo golayaasha kale qaranka bulshadu waxay xaq u leedahay in laga talageliyo wixii dhaqaalahooda yar saameynaya laakiin in si fudud maayarka oo arrimo kale wax laga weydiinaya uu yiraahdo madaxweynaha ayaa amray sabab la'aan in la raro xarumahaas dawladda waxay shacabka ku noqotay anfariid iyo afkalaqaad waxaana ay sheegeen qaar badan oo kamid inay ceeb ku tahay arrintani milgaha dawladnimada go'aankan ayaa noqon kara mid bulshada si kala qaybiya sida ay dad badan ku doodayaan abuurana in qasrigii madaxtooyada loo arko in loo raray xaafad gaar ah sabab la'aan taas oo dabka ku sii qaban karta kala qaybsanaantii awalba jirtay ee ka dhalatay doorashadii dalka ka dhacday 2017